inay haweenku tagsiyada kaxeeyaan waa arrin aan caadi ahayn marka aad dhulka Soomaalida ku sugan tahay balse Sahra Maxamed Cali oo ah hooyo 8 carruur ah kuna nool magaalada Hargeysa waxa ay ku dhiiratay inay ku shaqaysato taxi oo ay ka soo saarto nolol maalmeedkeeda dad badan ayaa u arka dhaqan cusub halka kuwa kalena ay ku taageereen xoogsiga iyo shaqadeeda marka hore gaariga waxaan hindisi aanu iibiyo wuxuu ahaa in odagaygu ku shaqeeyo isla markaa odagaygu markuu ilaa bil iyo 10 cisho meelaha waday buu xanuunsaday marka anigu waxaan ku shaqeynayay professionalka caafimaadka kadib markii isaga iga xanuunsaday waxaan isku dayay inaan kaalintiisa taydii baan ugu buuxiyo subaxii marka salaada subax la tukado soo kaxo waxaan bilaabaa baahidii guriga inaan daboolo carruurta aan cunto u kariyo aan guriga nadaafadiisa iyo hawshiisa galo isla markaa guriga nadaafadiisa iyo hawshiisa markaan dhammaystiro ilaa saacad 7 meelaha wallahi horta dee rag waxa dhashay waa hooyo laakiin haddana Soomaali hadday nahay yani ixtiraamka hooyadu ku yaryahay ragga qaar baa markay arkaan taxi bay naaga wadataa naaga oo taxiga rag baa lagu ogaa waa taxi la waa wixii shaqadii ragga maxay shaqadii ragga faraaq ku galiyay yani ku yeeshay sankaasi bay weydiyaan mar walba qaar baa dadana wadada hor joogsado dabilcaani iyagoo dad u kasa hor joogay gaariga tan waxba aan qof dantiisa wato yani duruufteedu ay muuqataan hay waxba culays uma hayso su'aashoodii iyo jawaabtooda toona haye Sahra Maxamed Cali agula maadaama dumar tahay inkastoo yani aan taxadir badan muujiyo haddana marka ugu badan waa marka adigoo meel fog maraya taayir ka banjaro kale dhibteeda leedahay wax problem ama dhibaato ay culays soo aan ahayn dhalinyarta baabuurta ay hor joojinaysa anigoo hawl wada ama qof degdegay sida yani bilcakaska ay hor joogsanayso iyaguna laftarkoodu iminka ilbaxnimadii soo kordhinaya oo si aanu isbaranayba noqday waxaan ahayn oo dhibaato kala ma kulmo alxamdulillah wixii dhaqaale iga soo gala yani maadaama meheradaydii furantay gaarigaygana ii shaqeynayo carruurtaydii iyo 8 aboodna aanu shaqeynaynin haddana alxamdulillah waa ku filanay biilkooda iyo hawshooda